ahey beeno iyo maalmo wanaagsan ideelkiinba markaa dadka nasiibka u yeeshay inaanu mar labaad iyo mar saddexaad hawadan fiican aanu ku kulano sanadka cusub ee 80-kana waxaanu idinku soo salaamaynaa geygu uu kala fogiyo buuraha gaashaaman iyo bad bay naga kala gudbane gebiga Soomaali weyn gudoon barasho horliyo salaan guud baan sidaa mid gaarana waa wada aan soo gooyay gablada walaalkeystayda nabad waxaan jecelahay inaan halkan maanta idinku soo qabto sheekadii xiisaha gaarka ah dhalinyarada u lahayd ee ahayd hadal qaadka jacaylka hadma kuugu horeysay hadal qaadka jacaylka hadma kuugu horeysay waa fikradii halabuurkii Axmed Maxamed Saad Genius mu'allifkii riwaayadii inda caashiq ismaaciil kan 73-kii dadka sheekada ka shaqaynaya ee muhiimka waa Xasan iyo Warisa Maryam iyo Faysal Victoressa Kahamalayko iyo Nurani mooxarsanayd ku dheelmatay kuna libiday godkeedii oo ay ka balsatay habeen cirku qurux aanu lahaan jirin uu la kowsaday dayuxuna oo in maqal soofkeeda uga sare u hayaamay oo uu si xasiloon oo aan la malayn karin dhinaca bari uga soo gurguuranayo waase tilmaani cajab gelisay oo aanan aftahanimo iyo weero u qalma ku sifayn karin sida caadku u dabayla raacay hawada xidigihii sheekhsanana ay u ifaadamayeen loona bildaansanayay markay Waris indhaha saartay Xasan oo ka soo eegaya dadka dhexdoodii inta ay xasuusan tahay ku dhawaad muddo 2 sano ah ismay arag waqti barashadooduna ay lix jirsatay wayna la yaabanayd ruunahaan shaqaalka dabaalay iyo sadka xasliyay waxaan u jeedaa inantu waxay garan lahayd waxa Xasan ku iloobay galiliyadii caashiqay uu qabay iyada tolow ma waxa dib iyo eedaad ugu filnaaday 4 sano iyo dheeraad ergooyinkii iyo waraaqihii faraha badnaa ee uu u diri jiray oo iyagu noqday hal bacaad lagu lisay Mr. Tolow Waris muxibbadeedii Xasan maanka kama jirin muxuuse ka soo doonay arooska loo ila xiray xaaji Kamadare iyo Afli Faarax oo Waris la dhalatay ma wuxuu hubay inuu qalgacaladiisii caaway meesha kula kulmayo dib haddii aynu ugu noqono jacaylkii dhexmaray Xasan iyo Waris wuxuu ahaa mid ka soo bilaabmay ardaynimadoodii markii Xasan loo soo bedelay dugsiga sare ee Banaadir isla doonasho ilaah waxay noqdeen isku fasal kaga daranay kursi agteeda ka banaana ayaa macallinku Xasan ku yiri halkaa fadhiisadiiba loogama horeyn arabiyaaba waa la arkay eegmadeediina waxa ku duulay jiriicada runta ah iyo damqashada kalgacalku u leeyahay Xasan intaanu bilba joogin ayuu jacaylkii marka ka dambeeya ku sii xididaystay diray inkastoo uu islahaa haqiran boogihii kalgacal ee uu dusha ka saari jiray ubaxana banaanka ayuu soo dhigay dadkiina ama macallimiintii iyo ardaydiina way wada ogaadeen kalgacalka Xasan haya iyo sida inuu Waris uga warqabin ardaynimadoodii isaga iyo Waris
laba nololood oo aad u kala fog ayay ku kala noolaayeen. taasuna waxay ku xidhnayd waris oo aabaheed maalqabeennada tirsan ka mid ahaa iyo xasan oo qoys sabool ah ka soo jeeday. xagga waxbarashada gabadhu aad bay ugu wanaagsanay tacliinta, xasanse wuu ku liitay. xagga quruxda muuqaalka jidhka iyo joogga inanta waxay ahayd inantu jawhare lamood jaahiyada nuurka leh. marka ay jalleecaan raggu wada jiboodaan inankase xasanse u malayn maayo in ninka foolxun hooyada xambaartay. xagga dabeecadda xasan nin bulshaya oo dadla socod leh ayuu ahaa. inantuse oodantiday lahayd oo gabdhaha ay wax wada dhigtaanba ugumay filnayn sheekada. dhinaca cayaaraha, boodooyinka, jimicsiga, orodada iyo kubadaha kala duwan, xasan iyo waris isku mid bay ahaayeen. labadooda midna intuu garoon weligii soo galay lug iyo gacan u leeyahay ma fidin. xasanse wuxuu ku dhaamay waris masalaada riwaayadaha oo uu heer qaran ka muujin jiray. waxay lamaanuhu iska sawaabiyeen xagga asluubta oo waxay ahaayeen laba qof oo edabtooda wax loo dhigo aan la arag. baryadan ayaan ardayda reer banaadir maad kala haysan. labadii kastee meel wada joogaana waxay ka sheekaysan jireen kalgacalkan cusub ee xasan maandooriyey oo miyuu iskaga hado ma dhulku gabadh kale ka waayay waxa ilaahay naagu kala badshay ayay qaar odhan jireen. kuwo kalena waxay odhan jireen oo iyadu maxay isla xawaasheynaysaa may miskiinka wax la qabata. dharaaro la yaab leh ayaa xasan soo maray. hiirtuu ka lihi jiray aroor kastana wuxuu u jarmaadi jiray iskuulka. intaan ardayna dugsiga tegin ayuu isagu tegi jiray. wuxuu sii hor fadhiisan jiray geedka ama iridaha waaweyn ee balqan. wuxuu ku sugi jiray waris si uu ugu sheego inuu jecel yahay. inta badan waxaa soo mari jirtay waris oo dhowr gabdhood dhexda ugu jirta. hadday keligee tahay runtaad u sheegi lahayd maxaad si iminka ku odhan ilayn dad bay la socotaay ayuu isoo sida uu sii qoraansiiyana sidaa ayuu jelasku markaa ku dhici jiray. xisaduhu marka ay bilaabmaanna isaga xisado shaydaan baaba u furmi jiray. inta macallinku wax dhigayo oo dhan xasan miyirkiisa iyo maankiisuba waxay ku maqnaayeen meel kale. saburadda halkay ardaydu ka eegaysana isaga waris baa u ahayd. waxay ahayd macallinkiisa joogtada ah ee uu ku hayo laabta.